بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kusoo dhawaada shabakada kobciya media iyo al-ustaad injineer xasan maxamuud yuusuf maantay waxaanu qaadanaynaa oo amayn maalmaha kusoo jirnay chapterkii koowaad ee hordhaca kombiyuutarka cashiradiisii isdaba socday waxaanu maanta qaadanaynaa cashirkii afraad waxaanu insha allah cashirka afraadna aynu kaga hadlaynaa waxa loo yaqaano computer storage. Computer storage waa haamaha ama keediyaasha kombiyuutarka labaa loo qaybiyaa primary storage iyo secondary storage. Primary storage waa maxay? waa keediyaha koowaad oo kombiyuutarka uu la-aantiisa uusan shaqayn karin. Macnaha waa keediyaha koowaad oo kombiyuutarku haddii la waayo uusan shaqayn karin. Waxaa ka mid ah hard diskiga, waa maskaxda dhan oo kombiyuutarka xogta u haysa. Wax walba oo kombiyuutar ku jira meesha uu ku jiro waxaa loo yaqaanaa hard disk. Si ku meel gaar ah uma hayso, waxay u haysaa si kama dambays ah. RAM baa ka mid ah oo si ku meel gaar ah u haysa, iyo ROM oo aynu arki doono. Saddexdaa marka waxaa loo yaqaanaa primary storage. Secondary storage markaynu fiirino waa keediyaasha kombiyuutarku uu ka maarmo oo uu soo kici karo haddii aan kombiyuutarka aysan ku xirnayn. Waxaa ka mid ah CD baa ka mid ah, waxaa ka mid ah flash, waxaa ka mid ah external hard disk drive. Marka labadaas ayaa loo qaybiyaa. Okay, haddii aynu ku horeyno primary memory waa maxay? Waa memoryada kombiyuutarku ku shaqeeyo. Waa memory fast ah, aad u dheereeya, expensive qaali ah. Short term memory waxaa laga wadaa waa memory muddo gaaban shaqeeya. Enables wuxuu kombiyuutarka u qabtaa to store inuu u kaydiyo at least macnaha inuu u kaydiyo xogta qaab temporary ah, si ku meel gaar ah inuu xogta u kaydiyo. Programmada uu hayo si ku meel gaar ah and intermediate resultyada la kala gudbinayana uu si ku meel gaar ah u hayo. Labaa loo qaybiyaa, waa RAM iyo ROM. Sawir ahaan halkan ayaynu jeednaa, waxaa loo qaybiyaa RAM iyo ROM ayaa loo qaybiyaa. Okay, RAM-ka haddaynu ku bilowno waxaa loo yaqaanaa main memory. Main memory haddii loo yaqaano muxuu qabtaa? Wuxuu qaab temporary ah u hayaa baa la yidhi xogta. Qaab ku meel gaar ah ayaa wuxuu u hayaa xogta u hayaa ama barnaamijyada u hayaa, iyada oo macnaha uu shaqeeyo for using during process. Inta shaqadu ay socoto kombiyuutarku intuu daaran yahay ayaa RAM ku shaqeeya. Waxaa lagu magacaabaa markaa shaqadiisa oo dhan noqoto shaqo volatile ah. Volatile waa maxay? Shaqo ku meel gaar ah. Any information, xog walba oo lagu kaydiyo RAM-ka way luntaa baa la yidhi. Goorma? When the computer power off. Markii kombiyuutarka la damiyo, xog walba oo kombiyuutarka lagu kaydiyo oo RAM-ka ku jirta. Maaha xog walba, waa xog walba oo kombiyuutarka ka shaqeynaya oo RAM-ka ku jirta. Markii kombiyuutarka la damiyo way luntaa. RAM waa maxay? RAM waa is the memory that the computer uses. Waa memorygu kombiyuutarka u isticmaalo si ku meel gaar ah xogta inuu ugu kaydiyo mar walba oo shaqada hayo. Mar walba oo xogta loo baahan yahay in laga shaqeeyo ama laga process garayo ay badato, waa mar walba oo RAM badan loo baahanayo. Mar walba oo xog kombiyuutarka uu kugu daaran yahay oo aad wax ka daawanaysid, wax ka dhageysanaysid, waa mar walba oo loo baahdo RAM badan. Marka kombiyuutarka markaa RAM-ka aad iyo aad buu ugu xiran yahay maadaama kombiyuutarka isticmaalkiisu ay RAM-ka ku xiran tahay. RAM-ku wuxuu ka kooban yahay locations, goobo ama cells, unugyo ama qaybo ka kooban yahay. Qayb walba oo macnaha ama unug walba ama god walba ama meel walba oo ka mid ah RAM-ka waxay leedahay unique address u gaar ah, kaas oo lagu kala saaro ama looga garto macnaha godadka kale. RAM-ku wuxuu leeyahay godad kala duwan buu leeyahay. Godadkaasi marka magacyay leeyihiin. Godkani waxaa la dhahaa A2C, ama godka waxaa la dhahaa A24, godka waxaa la dhahaa A25. Macnaha godadkaas waa godadka uu wax ku kaydiyo oo macnaha xogta kombiyuutarka ugu hayo. Okay, haddii aynu u galno qaybta labaad oo ROM loo yaqaan, waxaa laga soo gaabiyaa read only memory. Read only memory waa maxay? Waa qayb ka mid ah memoryga. Waxaa ka mid ah tilmaamihiisa programmed, waxaa la barnaamijiyaya oo la diyaariyaa oo xogta lagu shubaa manufacturing time, xilliga kombiyuutarka la sameynayo ama memoryga la sameynayo. Hal mar baa lagu shubaa xogta. Xogta ku jirta cannot be changed by the user. Xogta ku jirta ROM-ka
qofku ma tirtiri karo waxba kama bedeli karo xogta maxay noqon kartaa waa inuu informationka computerka noo sheego masalan computerkaagu dabkiisu waa yaryahay waxaasaa save garaysay shaqadaasaa qabatay computerka dab soo geli shaygaasaa xumaaday xogtaas waa xogta marka memoryga la sameynayo ama computerka la sameynayo keliya lagu shubaa inaguna waxba kama bedeli karno wuxuu u keydiyaa baa xogta qaab permanent ah permanent waa maxay qaab ku meel gaar ah uma keydiyo wuxuu u keydiyaa qaab kama dambays ah okay inta hadday kaga baxno primary storage hadda waxaan garanaa secondary storage storage-ka labaad ama keydiyaasha labaad waxay keydiyaan xogta iyo barnaamijyada qaab kama dambays ah bay u keydiyaan xogtu waxay ku jirtaa baaliya xataa oo ay hayaan marka computerka la dejiyo tusaale waxaa kamid ah hard disk-ga waa maxay waa maskaxda computerka xogta badan uu ku hayo inta badan locate outside the CPU inta badan banaanka ayuu yaalaa laakiin banaanka marka lagu leeyahay wuxuu ku jiraa baaliya hard disk waxay ku jirtaa system cabinet-ka macnaha sanduuqa xogtu ay ku jirto oo weyn oo computerka ag yaala waa meeshaas ayaa maskaxda computerka inta badan ku jirtaa waxaa kaloo kamid ah floppy disk xogta waxay haysaa muddo badan haddii kastoo laga baxay optical laser disks waa maxay waa cadladaha laserka ku shaqeeya iftiinka ku shaqeeya waxaa kamid ah CD-ga kamid ah CD-RW kamid ah DVD-ga kamid ah iyo kuwii aynu soo sheegaynay markaynu inputka ay kasoo sheekeynayna okay waxaynu marka arkaynaa qeybaha marka hard drive-ka uu qaybsamo kan waa hard drive-ka oo furfuran walina waa hard drive-ka laptop-ka iyo desktop labadaba nooca uu yahay waa marka la kala furo markana waa maxay waa DVD writer waa RW waa maxay read and write way halkan saa u jeedid marka waa DVD writer waa desktop computer desktop ah godkii CD uu ka galiyay ama DVD uu ka galiyay kan waa maxay waa isla godkii uu ka galiyay floppy uu ka galiyay weeye oo cadida hadda laga tagay oo floppy-ga ahaa meeshuu ka galay marka kan waa godkii kanna waa godkii kanna waa maxay kanna waa maskaxda weyneed ee computerka oo gudaha kaga xirneed halka marka CD baa la gelinayaa halkana floppy-ga la gelinayaa halkana waa maxay waa cadladii weyneed iyada meel laga geliyo iyada computerka gudihiisa ayaa lagu xiraa waxaan u maleynayaa marka inaan fahanay oo casharka si fiican aad u fahantay halka marka waxaa noogu dhamaaday chapterkii koowaad oo ka koobnaa 4 qaybood oo computerka uu ka kooban yahay waxaan rajeynayaa insha Allah inaad la socotaan chapterka labaad oo insha Allah aan soo gudbin doono oo si fiican u sharixi doono waxaan rajeynayaa inaad si fiican u fahanteen casharka si fiican aad ila socotaan waa macalinkiina Ustaad Xasan Maxamuud oo idin salaam iyo idin leh nabadi